ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii madaxweynaha la dilay wadanka dabadda ayuu kaga maqnaa waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi kulankaasi Mr Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi Mr Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa kamid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay wadankaas oo sida aad imika ka warqabtaan kamida wadamada awoodda fiitooda ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulla qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka bal qadar aanu idinka maqashiin hadalkiisii oo af Ingiriisiya. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle waxa uu yiri Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno waxa taasi soo raacda buu yiri inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado waxa igu filan buu yiri inaan iraahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doono sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suura gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaq ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba. haddaba Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii lagu wargeliyay in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu hawlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto Allah u naxariistay Xaaji Muuse Boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxa kulankii ugu dambeeyay la isku afkartay in Xaaji Muuse Boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii Oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto. gododada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatoorade sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed